munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayo qalab soo gaaray isbitaalka weyn ee magaalada Badhan ayaa lagu qabtay sala magaaladaasi sida warkaan inuu soo diray wariyeena Cabdirasaaq Cali Balbal magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa cusbitaalka guud ee Badhan soo gaaray sariiro patient ah waxaana cusbitaalkan agabkan u soo dhiibay qurbo joog Cabdiladiif Maxamed Cabdale oo loo yaqaan Cabdiladiif Hariye oo kamid ah aqoon-yahanada reer Maakhir madashan lagu kala gudoomayay agabkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah cuqaasha iyo waxgaradka magaalada ururada haweenka iyo maamulka cusbitaalka guud ee Badhan waxa ugu horeyntii ka hadlay madashan maamulaha cusbitaalka guud ee Badhan Axmed Jibriil Cali Salaad waxaana hadaladiisii kamid ah insha Allah wax rabaa in yar warbixina inaan halka ka sheego ku saabsan arrinka inuu halka u nimid oo ah qalabkan soo gaaray cusbitaalka qalabkaas oo uu nagu deeqay qof ka mid ah qurbo joogta u dhashay mandaqada oo hadda magaciisa halka ay ka muuqdo ninka la yiraahdo Cabdiladiif Maxamed Cabdale Hariye waxaana soo gaaray sariiro 20 tiradu ay gaarayso iyo qalab kale oo raaca sida kawdhada yar ee alaabta lagu guro iskriimada dadka martay lagu asturo qalabkaasana soo gaaray runtii waa deeqdii ugu badneed oo hadda in muddo ah soo gaadha cusbitaalka waxaan u sheegaynaa marka dadka mandaqada u dhashay in alaabtaasi ay naga soo gaadhay ninka odayga ah ilaahay ka jaaisa mariyo madashan ayaa waxaa ka hadlay cuqaal iyo waxgarad waxaana kamid ahaa nabadoon Cabdilaahi Cabdi Ibrahim iyo nabadoon Cumar Awsiid waxaana dhamaantood u duceeyeen injineer Cabdiladiif Hariye oo u soo dhiibay agabkan loo qabay baahida weyn ee u baahnaa cusbitaalka guud ee Badhan dhanka haweenka ayaa waxaa ka hadlay hooyo Xaawo Cabdilaahi Warsame oo kamid ah ururka Nasr oo iyadoo aad iyo aad ugu mahad celisay injineer Cabdiladiif Hariye waxa iyaduna tix buraanbara ka jeedisay madashan abwaanad Aamina Maxamed Jaamac qariiray warqaydka kii jeexay oo guriga kii qariiray mas'uulada qaaliga iyo qorshaha la waaday مسؤولة قالقة يغرشها اللوادي bulshada iyo ururadii qayladhaan tadiray tiktorkii buugga qoray qalabka noo dalbaday iyo midkii lacagta qure wanaagu qumay allaha barigaali beydkood jannada kamiin ma aha kuwa hore aynu aragnay kuwana waa koobadiinadii sariirtan iyo furaashkeedu waxa ay u qaaban yihiin qaab habka qofka patientiga ah qaabka xanuunkiisu yahay waa loo dalacayaa waa la fadhiisinayaa waa loo dalacayaa waa la jiifinayaa waxay leeyihiin batoon la taabto sidoo kale ama cathetration loo sameeyo lagu asturayo weeyaan iyada oo waarkiisi dhex jiifo qol noqonaya oo lagu asturaya ilaahay mahadin isku soo wada duubo waxay tani ahayd deeqihii ugu waaweynaa soo gaara cusbitaalka guud ee Badhan Cabdirasaaq Cali Balbal telefishinka caalamiga ee Somali Channel Badhan